qodobkan ka hadlayo waxa weeye inuu community kobco ama ballaadho mushkilaadka hor iman kara community kulliba wuxuu doonayaa qofka entrepreneur-ka ama hal abuurka ee doonaya inuu fikrad bilaabo wuxuu doonayaa community inuu ballaadho ballaadhona mushkilaad ba hor imanaya waxay yiraahdaan afka qalaad waxa lagu yiraahdaa good problem iyo bad problem baa jira mushkilad iyadu dhibaato leh iyo mushkilad iyadu aan saab wanaagsan iyo mushkilad aan wanaagsan barahan mushkiladda aan wanaagsan waxa weeye tabilowga ah inaad customer baxayn ama aad fikradaadii aan suuq lahayn taas waa xamsa ka soo hadlay inta waxa weeye bad problem ka hadlay waxa weeye tamaamulka oo ah kamaniga inuu ka awood weynaado inaad maareyn kari weydid inaad maamuli kari weydid oo badanka dadka businesska bilaaba marka waxay ku bilaabaan niyad iyo passion ama waxaan u hayaan laakiin aanay aqoontii maamulka aan u lahayn businesska taasoo waxay ka hor keeni kartaa inay awood badan ay ku lunto meel aan loo baahnayn wixii noqdo wax soo saarkii oo aad u yaraado awoodii dadkii ka shaqeynaya meesha employees-kii awoodii teamka iyada hoos u dhac weyn ku yimaado taasna waxyaabaha mushkilaadka ugu weyn haysan tusaale kale markaan ka sheekay marka marayso mushkilaadna haysan jiray waxa weeye markii community ballaadhay qayb burcad joogta qayb boorama joogta qayb hargeysa joogta hargeysa lafteedana dhowr team ay kala yihiin oo teamkii wax isku xira wixii laga shaqeynaya la garanayn oo mararka qaar markaan weekii markuu dhamaado aan soo nimaadno maxaan qabanaynay aan aragno wixii aan qoranay bisha aan qoranay waxba ka qabanba marka waxaan karnaa waa teamkii uu soo kala hayay shaqaaluhu soo kala hayeen subaxdii soo kala hayeen waxay imanayeen todobadii barkii waxa la ruuxay xilli dambe hadana wax ma fulin marka waxyaabaha maamulka uu aad ugu muhiim yahay weeye wuxuu sameeyay inuu wax ka soo saaro awoodii teamka dhammayska tiran inuu meel wax soo saarna ka soo baxaan taasna imika waxa jirta imika caalamka oo kale imika businesska la bilaabo ama community uu ballaadho inay bedelaan dadkii bilaabo dad manager sameeyay la keeno community maamula oo dadkii si community hor socdo si looga faa'iideeyo awoodiisa taana community badanka oo qofkii bilaabay laga yaabo dadkii teamkii bilaabay inay ku sii jiraan maamulkiina haddana aan wax aqoon aan korsan oo community inuu hoos u soo jiito oo hoos soo dhigo talabaad ka mid ah maamulka mashakilka maamulka waxa weeye executionka ama inaad wixii aad qoratay inaad meel marisid ama aad qabatid tusaale kale mahmaha business waxay tiraahdaa strategy and execution is a graveyard of strategy ama inaad waxan strategy aad qabatid executionka ama wax ka qabitaankeedu waa meesha maqbarada waxa weeye strategy-da yani strategy kasta si wanaagsan loo soo qorsheeyo waqti badan la geliyo laakiin marka timaado halkii wax qabadka halkaas lagu kala baxaa taasna waxaan maamulka iyo soo geliyo marka teamku waxaan uga faa'iideyn lahaa tusaale kale inay laba book ay soo heli karaan internet ku jira ay soo download gareystaan mid waxa la dhahaa traction baa la dhahaa how to get grip of your business waa book aad u wanaagsan oo qofka entrepreneur-ka aan waxyaabo badan baa si dhexgalin inta muhiimka ah uu ka faa'iideysan karo book labaadna waxa la dhahaa scale up how few company make it buugaasna waa book aad u wanaagsan sanada soo shabataan wax badan buu ka caawin karaa sida company-ga loo maamulo tusaale kale waxyaabaha kaga baxnay waxa kamid ah daily review aan sameeyno subaxdii markaan shaqadii aan qabano habeenkii qof kasta teamka IT-ga teamka finance-ka teamka marketing-ka inuu team kasta 5 mir ilaa 10 mir inay isweydiiyaan maxaan qabanay maxaa caqabad hor taagan maxaan qaban doonaa berri oo inta la wada qorto aad baan u caawisay oo shaqadii la iska waday marka dambe bil kadib lagu baraarugayay inaan waxba la qaban ayaa meesha ka baxday talabaadan kula talaa team dhalinyarada waxa weeye weekly meeting oo kale inay sameystaan oo week kasta team kasta ay intay soo fadhiistaan ay qortaan qodobada waxay qaban lahaayeen kaana waxa ka sii horeeya in bil kasta la qorto taskiskii ama goaliskii yaali waxa doonay bisha weyn aan gaarno magaalo hebel bisha weyn aan sameynta salesisa hadhow la sii jajabiyo teamska loo kala qaybiyo marka taas waxa weeye waxyaabaha maamulka waxyaabaha ugu muhiimsan ee badanka dhalinyartu ay waliba entrepreneursku ay yani arag waayo focus waxay saaraan niyad ma hayaan weyn ma hayaan ideyada ama fikrada ma hayaan waxay leeyihiin in maamulka ilaawayaan caqabada labaad aan ka sheekeyn doonayda waxa weeye innovationka ama waxa la dhaho hal abuurka kamanigu ku ballaadho waxa heer bad gaadhaysa marka dambe inuu fikradaadii ay noqoto outdated noqoto wax waliga sii jira ma jiro markaas heer bay qayb gaadhaysa inay outdated noqoto ama haddana outdated noqon waxa iman kartaa in dad badan oo ka koobiyay fikradii inay maataan ama qaar competitors waaweyn oo hore ugu sii jiray inay fikradaadii ay arkama ka suuq leedahay inay ku soo iyaguna hanbal suuq qaabaleedu kana market share ama idinku wax ka qaata wax jira caalamka ka jira maaha inaad ka xanaaqad maaha in laga koobiyo fikradda inaad ka xanaaqad maaha wax suuq ka jiro waligeed buu soo jirtay waligeedna wuu jiri doontaa laakiin waxyaaba laga bixi karo
taa inay fikrada in laga baxay iyo competition kan badan ee dadka kula tartamaya ku soo suuqa soo galiya waxyaaba laga bixi karo waxa kamid ah hal abuurka markasta aad fikrad cusub soo saartid aad meesha taagnaane hararaha markasta iska eegnon noqon maxaa dadkii fikradii baa laga koobiyay qaar bartama la soo galay aad noqon qof markasta dib eegaya noqotid qof halkaaga hor eegaya oo markasta soo afkaar soo kordhinaya tusaale kale aad soo qaadana Facebook oo dheer waan wada isticmaalnaa hadaad u fiirsataan deelaadu dhowr sanad ka hor miya deelaadu waxa ka hor meel ahayn live meel ahayn oo qofka doonayo inuu live ka soo galo kuma soo gali jirin imika live baa lagu soo daray imika directed deelaadu waxa ka hor like kaliya la siin jiray comment imika waxa lagu soo daray like waji cadaysan waji qosliya wajooya ka ma isweydiisan Facebook shirkadda sida weyn maxaa ku kalifay inay daily wax yar cusub ku soo darto waxay diidaysaa inay outdated noqoto laga baxo dadka ay nacaan oo wixii wax xiisan ka sanado laba competition kii ama dadkii ka koobiyeen fikradda markaas fikradda ay u koobiyeen kareen wax kasta cusub lagu soo daro marka taa innovation ku ama hal abuurku waa ta ugu muhiimsan caqabadka marka kaminaga balaadho bilowga ilaa dhamaadka waa ta ka hortaagan marka bilaabisan hal abuur waa laga baahan yahay marka business weynaadana hal abuur waa laga baahan yahay hal abuurku waa ta ugu weyn ee loo baahan yahay in aad horowida ugu gudubtid marka hore waxaan ku bilownay markii bilowga muraso.com saddex arday oo jaamacadda wada dhiga jirnay isku class baan ahayn jaamacadda Ardwas University maalmaha classka fadhina bay fikradan u soo dhacday haddaan ku bilowno online haddaan ku bilowno fikradda waayo dadka imka internetka isticmaalayaan oo berigii internetka aad u wada barteen samkii barkana soo galay suuqa soo galay markaas online markaan aan bilowno pure online markaan dhignay marka ugu horreysay fikradii waan ku fail garoonay haddana waan bedelno buugaag waan ku dhignay waan ku fail garoonay haddana markii dambe waxay noqotay fikradii saxda ah inaan halnay ahayd inaan offline online labadaba ku iibino markaan bilownay fikraddaas aan noo hirgashay waxaan ku bilownay heer aad u sare gabigeeda waxaan ku bilownay $230 ku noolnay bas $400 gabigeeda waa fikradda Cabdiqani sheegay saaxiibkeena aan ahayn Maxamed lacag badan lagu bilaabo markaan ka soo rawaxno jaamacadda shandadii inagu jirtay buugaagtu inta buugaagta ka saarno ayaan laptopada ku ridi jirnay ama delivery-ga dadka u deliver galay jirnay maanta alxamdulillah waxaan ka shaqeynaa gobolada Soomaaliya oo dhan iyo Puntland ka shaqeynaa Soomaaliya insha Allah waxaan u gudbaynaa insha Allah sanadkan u gudbi doonaa xarumo weyn waxaan ku leenahay Boorama Hargeysa waxaan ku leenahay laba xarumood ku leenahay Burco waxaan ku leenahay xarun insha Allah Berbera iyo Laascaanood waxaan ka furi doonaa insha Allah sanadkan gudihiisa aan ka furi doonaa markii hore waxaan saddex kaliya hayno ardayo buugaagta marba deliver gareeya alaabta deliver gareeya intii laptop buugaagta ka saaraa laptopda ku qaada product ku qaada maantana waxaan ka shaqeeyaa community ilaa 20 qof in gaaris